ninkaasoo tuugaha asalkiisa yaa markii wadadii dhexda la sii marayay wuxuu yiri wadadan inagu leex waxa uu yiri war wadadan haynagu leexina tana raadkiya dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari wuxuu yiri may anigu tana aqaano tana dhow oo tana toobiya wadadii ayuu ku hormaray ninkii dabeedna markii hawd halkaas haya keenaya dhul qariib la dhex maray iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafadad badan oo dhintay waxa uu ku yiri intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaagaba banaysto wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadaydii iyo ehelkaygii aanu noqdo hooyaday baa keligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay wuxuu ku yiri inta aan dilayba hadal fiican way yiraahdeen qofna sakama maqal waxa uu yiri waxaan ku yiri war afar rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar hadaad dilayso markaas wuxuu yiri waxa tukataa inta aad rabto waxa uu waxaan bilaabay salaad waxaan isku dhaxwaday ducooyin iyo aayad quraan oo qalbigayga ku soo dhacaysay aayada quraanki waxay amman yujibul mudarra idha da'aa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'a Allah aayada qalbigayga ku soo noqnoqonaysay ducaduna waxay ahayd ya wadud ya dhul arsh al-majid ya fa'alu lima yurid ducooyinkaas ayuu akhriyay أغثني يا مغيث وأغثني بكوع العلي دعاء مركو أخرياي يا وركعته سيكون حجري يا وحو لسك الله ارتاقنا ورنكي وكدلي لها أي الله ارتاقنا يا رقصة أي لها وحو أجيدي نكي أو دربدي بحق ضمبجة لاعي أو لنا عافيريي بس إساقينا صلاة دي انتو كبحيبو فيريي تبدنا وحو أركينين فرس وته وآدو سو أرديو واديغا يتوقع لنا عهوسك صوصعدا ورن أولولا يانا قعنته kuwata ninkii ayaa ku dhuftay markaas uu ninkii dilay waa weydiiyay wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay wuxuu yiri anigu malag baan ahay u xil saaran amman yujibul mudarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard anigu dadka mudariinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiyo inay ilaahay u noqdaan kuwaas anigu iska rabtaagaa buuri dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqifni marka lahayd albaabka koobaad ee samada gariiray markaas samadana lagu garaacayo garaacidii ka fadhii weynay buu yiri markaas aniga la soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo waaniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar hadaan inta kugu soo ajiiban koogu yimid walaal waxaan ku leeyahay kuma amrayo waxaan ka dalbayaa sin xariisa shariidka kooban oo aayadaha quraanka iyo xadiiska iyo qisaska islaamiga ku duuban yihiin cid aad gaarsiin karto dhan gaarsii inta kuugu jirto dhan u you.